بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي والالبويدي السلام يا وقتينا يا عمرنا ويا وقتينا يا عمرنا الله ينو بركة ميل اللي ماشي جوجنا الله ينو حفظنا كل دوره ورسني وخيري وبركنا الله ينو سيريو ربي سبحانه وتعالى جل في علا جل جلاله إن إلهي سبحانه وتعالى جل في علا إلهي بينو برينا رنتي إن مارتي وحلو حين شيء إلهي إنه بركيه وحي شرنا إلهي إنك حجابه إسلامكم أنتي مسلمين توحي كجيران إن إلهي سبحانه وتعالى بدل خير قبه ودقدق إلهي إنه كبدله كربدا يقولوا لكن الله إنك فيدو وحان ربع رنتي قصة عادي عاد وعجيب بدل رنتي أنا قاعد يتابطي إنا إذن لو ذا قصة داس وحي حسوسي سارنتي إلهي سبحانه وتعالى آية ديسا سورة عنكبوت لبا آية دودو كجرة آية دي اللحاد وإلهي يريقف كي جهاده وهالقمه يا نفتي سأنبو وهالقمه يا إلهينا إنو هودن كي يكدقتوية كردن عالم كردن إنو ألا كدقتوية وآية دي اللحاد سورة عنكبوت معناها دو صداها آية كان هو آية إسلا سورة داسو إكو قبقبودو وإلهي سبحانه وتعالى يري والذين كوي جاهدوا يا والذين جاهدوا كوي كجهادي فينا النجا وددنا حقنا كوي كجهادوا كهالجمي يا لنهدينهم ويري إلهي وانكوهنونينا سبلنا والدواين كينا حقا يا خيرك أيانو كوهنونينا وحو إلهي كو قبقبي آيادا وإن الله ألنا لمع المحسنين إنو يهي كوا سماها فله لجركو ده إنو إلهي يهي سبحانه وتعالى آيادا سيترنتي قبر والعشينا الله أنحرس تهد ويدمت قبر داسو وماركتي حق قشيء يالقو فيي ودنكا إن سعودي قايا قصة داسو كدعضي قبر داسيتو وحو كسو كورتي أو كدالتي أو دالي أبيه هويو أن إلهي دينتي سكو دقمينين وحي إلهي حرمي ودك دكتي يجد هويدنا أي مالنتي بحضو وحي ربتا صوصة ميس فواحش يحمانا أبوهنا وسيدا سومالين يهبين بأوكو مقايهي وحل وحي حمان أها وصوصة مينيو قريقا لوسو هيدا اللي يمادو أباها يهويدا دقان كودو سيدا أها سلادي يصوني عبادية ألا كباقتونا أن حارانتي يحمانتي كجوكسن dhaqan ka dhigtay ayaa dhalay gabadhaas reerkaasi ka dhex dhalatay markay dhalatayna oo soo kortayna gabadhii walaa dugsi walaa qur'aan walaa diin walaa iskuul meel la geeyo male rabbigeedii lama barin gabadhii sidii bay ku soo kortay sidii bay ku soo barbaartay aabe aysan arkaynin oo dhaqankiisu waxaa yahay habeenkii habeen barb imaanaya maalintii baxaya habeenkii addana aroorteeda kala imaanaya hooyo ayaduna dhaafaysa odagiyo baxaysa ayaduna waxay rabto soo sameynaysa fawaaxish iyo xumaana qofkay rabto wax la soo sameynayso soo dhaqankeedu sida yahay markay soo weynaatay gabadhii cunid iyo cabid hal la siiyo laakiin halka ay joogto markay soo weynaatay dhowr iyo 10 sano dhaqan gaartay wadadii hooyadeeda ayaduna martay aabaheed ayaduna meelihii hooyadeed tagayso ka soo tumanayso xumaanti ka soo sameynaysay inay iyo dadkay la sameynaysay inay ayaduna wadadaas ay ku biirtay oo raggaasayta iyo nolosha xun ee ku beerta iyaduna ay gabadh yarayd oo soo kortay oo dhalinyaro oo shabaa oo maaragtay dhalinyarnimadeedii iyo quruxdeedii la soo kacdo dhowr iyo 10 jir iyaduna inay caalamkaasayta inay ku beertay inay waxa samayso maalin maalmaha kamid iyadoo sidii xumaantii ugu jira 20 iyo wax ay gabadhii soo gaadhay ee maaragtay ay dhowr sano hadda arrimahaasayta ay ku jirto ayaa waxa dhacay maalin maalmaha kamid iyadoo koox dhalinyaro ah kuway u tagi jirtay gurigoodii iyadoo wiilal la joogta oo xumaantii wixii lagu jiro ay marka dadkii dhalinyaradii kala khamrigii wixii bay cabeen oo sameeyeen iyadoo markaas ay khamrigii ma aysan cabin arintii waxba lama aysan cabin miirkeedu marka waa joogay mid dhalinyaradii kamid ah marka wiilashii kamid ah wuxuu ku yiri waxaan ku weydiinayaa hooyadeedu caaye adigii hooyada kee ku fiican hawlaha ya xumaan samaynta gabadhi waa qaracantay hooyada mise adiga xumaantii yaa waa qaraca aad bay u qaracantay hooyadeed inuu ka hadlo waxa ku tilmaa xumaan ka sheego ya iyada inuu sidaas sameeyo xabad ay ku ogeedi la guriga taqaano xumaantay waxa la iskugu iimaanayeen
xabad meelay ku ogeyd bay soo qaadatay wiilkii bay ku furtay waa dishay dhalinyaradii kale qaraacankii iyo wixii waa la qaraacmay meeshii baa maaragtay lagu kala cararay xabadii wixii dhacay iyo wiilkii oo dhiiggiisa ku dhex dabaalanaya iyadoo ay gacanta ku haysato meeshii ma aysan cararin meelna ma aysan aadin ciidankii baa yimi askartii baa yimi la waca askartii baa timi askartii markay yimi iyadoo xabadii haysata wiilkiina dhiiggiisa ku galgalanayo meeshii baa la qabtay gabadhii waa la kaxeeyey waxaa la geeyey xabsigaa loo taxaabay xabsigii markii la geeyey gabadhii meeshii ay joogto ayaa ilaahay wuxuu qadaray ninkii madaxda ahaa baaba ciidankaa wati meesha yimi oo nin weyn ahaa meeshii buu geeyey dumarka xabsi gooniya marka dumarku leeyihiin wadanadeena islaamka dumarkii ayaa xabsigoodii baa la geeyey meeshii baa maaragtay qayb meel la siiyey ilaahay muxuu qadaray marka rabbi subxaana watacaala salaadii duhurka markii la gaaray oo banaanka la wada jooga dadkii bay waxay aragtay dumarkii oo maaragtay safaf galay oo salaadii la adamay oo dumarkii ay salaadii tukanayaan dumarkii markay aragtay oo salaadii tukanaya ayaa waxay tiri gabdhihii askarta ilaalinaya meesha oo ka shaqeynaya waxay tiri maxay dumarkani maxay sameynayaan sujuud markay aragtay iyagoo taagan gacmihii kor u qaadaya rukuucaya sujuudaya tiri dadkani ma jimci baxsi baa waxay sameynayaan dadkani waa maxay waxay sameynayaan may baa layidhi dadkani waxay sameynayaan ilaahay subxaana watacaala bay caabudayaan oo u tukanaya miyaadan muslimad ahayn miyaadan tukan miyaadan salaad aqoon may bay tiri salaad ma aqaan oo ma tukado oo maaragtay la ima barin waxaasoo dhan weligeena mar miyaadan aabbaha iyo hooyada arkin maya weligee ma arka iyagoo tukanaya iyagoo khayrkaas iyo arrimahaasiita sameynaya ilaahay marka muxuu qadar rabbi subxaana watacaala gabadhii sidaasiita markay arrintaasu ku dhacday in gabadhii markaa la baro awal iskuul lama gey waxba lama gey sama in markaa la baro sida wax loo qoro sida wax loo akhriyo qur-aankii la baro diintana marka meelahaas xabsiyadaas waxay ku fiican yihiin wadanadeenan islaamka in maaragtay ay jiraan macalimiin meel qur-aankii iyo diintii iyo wixii oo dhan in maaragtay lagu baraayo meeshii marka qur-aankii iyo diintii iyo wixii oo dhan loo bilaabay la baray gabadhii maxay noqotay hadde inay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabigaba calayhi salaatu wasalaam ay barato meeshaas intay ay daaciyad ku noqoto gabadhii intay iyadu baratay oo ku dhaqantay bay ummadii kalena bartay kitaabu rabbulcaalamiin iyo sunnadii nabigana calayhi salaatu wasalaam diintii ilaahay soon salaad cibaado wixii ka tegay yaa ilaahay inay dembi dhaaf weydiisanayso ilaahay inay usoo noqotay ilaahay inay u toobad keentay rabbigeeda inay baryayso u ooyeyso maalintiina sooman tahay habeenkiina ay u taagan tahay salaatuleyl u taagan tahay ilaahay baryayso sunnayaashii tukanayso faralkii toosisay sunnayaashiina ku dartay qur-aankii ilaahay marna kitaabkii ilaahay sidaa ugu fororto akhrinayso macnihiisi baranayso diintii baranayso daaciyad bay gabadhii noqotay maxay culimmadu uga dhigeen ma taqaaniin ciwaanka iyo qisadeeda kaanad saaniyatan wamaatad daaciyatan gabadhaasu markii horena sidaasay ahayd markii dambena waxay ku dhimatay iyadoo daaciyada oo ilaahay wadadiisa dadkii ugu yeeraysa marka taas aayadahaasi ita labada aayadoodba runtii qofkii naftiisa ku halgama qofkii halgama naftiisa unbuu halgamayaa ilaahay waa inaka deeqtoon yahay haddana ilaahay muxuu yidhi qofkii wadadeenna ku halgama oo ku dadaala inuu ilaahay subxaana watacaala oo jidka alleh raadiya oo ilaahay maaragtay kaalmaysta in ilaahay wadooyinkiisa ku hanuuninaya xaqa ah ilaahayna kuwa samaha fala inuu macoodaya la jirkooda marka wanaagaadaynu ku dadaalino raadino ilaahay subxaana watacaala waa inoo furay nabigeenna calayhi salaatu salaam muxuu ahaa mid yiraahda allahuma ahdinii wasadidnii ducooyinkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahow ii hanuuni oo itoosi ilaahay qofkuu doono in allaha yahdi man yashaa qofkuu doono hanuuniya ilaahayna waa mid fadligiisa iyo deeqdiisu ay badan tahay ay weyn tahay allahaasaan weydiisano allahaasaan barino gabadhii sidaa ahayd maanta waa iyada daaciyad iyadoo ilaahay subxaana watacaala maaragtay sidaa ku oofsaday maxaa dhacay marka gabadhii xabsigii oo dhan inay ka noqoto daaciyad diinta ilaahay dadka barayso kitaabka ilaahay barayso sunnadii nabiga barayso calayhi salaatu wasalaam ilaa mararka qaarkood markii habeenkii nalalka la damiyo salaatuleylkay u taagantahay ilaahay u tukanayso qolkeeda la nuurin jiray iftiin uu kasoo bixi jiray ilaahay u nuuriyo uu iftiimiyey adduunka iyadoo joogta gabadhii muddo markay sidaa ku jirtay sanawaad ayaa waxaa soo baxday in gabadhii xafiiskii xabsiga soo gaadhay in gabadhan xukunkii la xukumay in la qisaaso oo wiilkii loo dilay dembigaas ay gashay in laga oofiyo gabadhii xaqiisii in laga oofiyo ninkii marka madaxda habeenkaas soo qabto keenay
ayaa markaa arrintiibu warqadihii markii faylkii arrimihii u yimaadeen meel buu iska dhigay. wuxuu arkay gabadhani shaqada ay maanta u hayso muslimiinta iyo xabsigan ay ka hayso dadkan ay diinta ilaahay barayso in arrintaasayto ay arrin weyn tahay, marka inaan lagu degdegin in hadda la dilo bal loo kaadiyo arrintaanay hayso darteed. meel buu iska dhigay warqadihii. gabadhii waxaa dhacday ilaahay subxaana watacaala inuu dareensiiyey in waqtigeedii soo dhawaaday iyo in maaragtay ilaahay ay bariday. ilaahay bay bariday, waxay tiri ilaahayow waxaan ku weydiisanaya janno ayaan ku weydiisanaya, ilaahayow inaa booskayga aan agtaada ku leeyahay jannada inaa ilaahu i tusisido i naxariisato i dambi dhaafta i tusisid booska. way riyootay gabadhii, waxay ku riyootay oo la tusiyey booskeedii jannada la tusiyey ka geli lahayd maalintay soo wareegto ilaahay u wareegto alla agtiisa waxay ku leedahay. gabadhii hilow markay meeshii aragtay hadda qof janno arkay oo riyo lagu tusiya cajaa'ibu rabbina yaa adduunyaba meel bay iska dhigtay. waxay tiri ilaahay subxaana watacaala adaan kuu xiisay rabbiyow adaana ku rabaa. waxay habeenbarkii bay qaylisay gabadhii, waxay tiri iigu yeer ninkii markay soo kacdo riyada ay aragtay ilaahay ay bariday ayay tiri iigu yeera, waxaad iigu yeertaa. waana 3 beri gudahood arrinteedu markay soo baxday oo la keenay warqadaha, ilaahay waa kaasaas u hanuuniyay gabadhaasayto. arrintaasayto ayuu ilaahay tusiyey inay ilaahay barido booskeedii jannadan la tusiyo. ilaahay baa u sakhiro u fududeeyay, ilaahayna asturo adduuniya aakhiro. maxaa dhacay marka ninkii madaxdaa bay tiri hala iigu yeero habeenbarkaasayto. salay waa habeenbar ilaa berri ma iska sugtid may bay tiri hala iigu yeero. ilaahay marka rabbi subxaana ninkii baa loo wacay, waxaa la yidhi kaale ima. waana ninkii waagii iyada soo qabtay keenay meesha oo madaxda ahaa. marka waa wuxuu yidhi miyaysan sugi karin ilaa subaxdii may baa la yidhi habeenbarkaasay ku rabtaa heblaa kuu yeeraysa. wuu yimi xafiiskiisuu yimi, waa loo keenay. waxay tiri i dhegayso ilaahay baan kugu dhaariyay ma qisaastaydii baa soo baxday in la idilo. markaasuu yidhi maxaa arrintaa ka rabtaa? arrintaa warkaa ka bax, hawsha annaga noo taallaa, adiguna hawshaada gal oo dantaada wado, waxaa ka bax. may bay tiri haddaba ilaah baan kugu dhaariyay ii sheeg bay tiri. markaasuu yidhi haa haddaad saas iigu samaysay waa 3 beri gudahood ayaa hadda arrimuhu ila yaaliinay warqadahaagi la soo gudbiyey in lagu qisaaso. haddaba waxay tiri diyaar baan ahay, ilaahay baan bariyay, ilaahayna waa i tusiyey booskaygii jannada, mana raba adduunyadan iyo xaajana kamali. ilaahay baan u xiisay, ilaah baan rabaa khayrkiisaan rab inaan u baxo iyo raxmadiisa igu oofiya arrinta. maxaa marka ilaahay qadar rabbi subxaana watacaala jalla fi culaa jalla jalaalo maya wuxuu yidhi khayrka aad hayso mayay tiri ilaahay baan rabaa bay tiri anigu adduunyada ma rabo, sida ugu degdega badan arrintaa la igu oofiyo. 2 arrimood baan ku weydiisanayaa. markii la rabo in la igu oofiyo qisaastoo la idilo ii sheeg, iyo dharkaygu inaysan iga faydmin oo cawradayda ayay aasturan tahay ii sheeg. waayahay ballan weeye arrintaas. meeshii baa gabadhii la geeyay, waa la soo diyaariyey, 2 ragcadood bay tukatay, ilaahay bay bariday, ilaahay bay isku xirtay. bismillah allahuma salli calaa maxamed. ilaahay marka wuxuu qadaray gabadhii dadkii bay sidaa u wada fiirisay. dadkii markay fiirisay bay waxay tiri ilaahayow xaaladda aan maanta ku sugnay rabbiyo waa ujeedaa. hooyada iyo aabahay inay sabab arrintan igu ahaayeen, aysan kaa barin diintii i barin iyo wixii xumaanan ku jiray inay sabab igu ahaayeen. iyagana ilaahu adaan ku guddaayay rabbiyo subxaana watacaala xaqayga iiga qaat. yaa ilaahayow xaqayga adigan ku guddaayay iiga qaat. waa tawxiidsatay maanta dhibaatada aan la kulmay, imtixaanka aan ku jiro, inay arrintan qabsato, inay dadkani sidaa ii daawadaan, inaa arrintaas aan galo, inaan dhiig islaan galo, waxaasoo dhan ayagu inay sababtaa iska lahaayeen. ilaahayow ii naxariiso ii dambi dhaaf. waa tawxiidsatay gabadhii, sidii waa tawxiidkii baa afka gashatay, sidii baa lagu dilay. ilaahay cawradeedii ma faydin, iyadoo asturan baa meeshii laga qaaday. maaragtay ninkii madaxda uu sidaa u ilaalinay u fiirinay asturan ballantii uga soo u oofiyey. waxaa la geeyay meeshii meydadka lagu mayraayay. gabdhihii daaciyaadka oo magaalada joogay kulligood ayaa meel kasta iskaga yimid, midba midda kale u tartamayso, anaa mayraaya anaa mayraaya anaa mayraaya. saasaa loo galbiyey gabadhii, loo mayray. allaha u naxariista u dambi dhaafo, jannatul-firdaws dhaclana allaha ka waraabiyo, jannadii allahayna ku tusiya gabadha. ilaahay siday ahayd nolosheeda iyo sida ilaahay u damaysiyey allaha deeqsigaa baynu haysanaa aan isku xirno. mahmaa kaana waxaynu ku jirno nolosheenna wanaagga aan u bedelano, wanaagga aynu u cararno, xumaantana aynu ka fogaano.
ilaahay dikrigiisa iyo tawxiidkiisana afka aan gashanno warsan iyo wax khayr iyo war barakana allah inoo soo yeeriyo allah idin barakeeyo inta maarta khayrka faafinaysa inta walaalahay comment-ka soo qoraya walaal iyo waalid iyo walaalba inta share-ka taabanaysa inta subscribe-ka ah kulligiin allah idin barakeeyo gacmaha ku samayseen ku gudbiseen khayrka allah adduunkana barwaaqo akhrina janna idin siiyo ilaahayna shari shaydaan ba allah idinkaga xijaabo allah idin nuuriyo جزاكم الله خيرا بإذن الله الله يدين بركة قرآنك أهل القرآن الله إنك دقوا كتابك إلهي نمرت كن نقن إلهي نورسني وخير الله نسو يري الله نكون نوليسي والدي ولا لي علم دين أنت هرمت الله ونحرست أنت النون الله نوبركيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبك المدود عربك كفضد ميسانك آخر كعلس إلهي الرحمن كأجعليه كن هذا الله إنك دقوا أحب كلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله إنه كنا ولا يورسني وخيرنا الله إنه سويري ولا عليه إن الله وجرجاره نسري يقول رير فلسطين رير قصة الله سيعد وجنا الله إنك قبض شركودنا الله كعريه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.